بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بمهدله مدحوينه كحوجينka Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna ku simaa madaxweynaha mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici oo ay wehelinayaan wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shire wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi iyo wasiirka warfaafinta Cadaani waxay la kulmeen kulan ballaaran la qaateen wafdi ballaaran oo ka socda dawladda Ingiriiska oo uu hogaaminayo wasiiru dawlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Rory Stewart oo ay hogaaminayaan oo ay la socdaan safiirka dawladda Ingiriiska oo qaabilsan arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya agaasimaha arrimaha Afrika ee xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda guud ahaan wafdiga ballaaran ee dawladda Ingiriiska ee maanta booqashada ugu yimid madaxweyne ku-xigeenku wuxuu madaxweynuhu kula kulmay qasriga madaxtooyada waxay ka wada hadleen arrimo fara badan oo khuseeya xagga horumarinta xagga nabadgelyada xagga iskaashiga xagga doorashooyinka dawladda Soomaaliland ay qaban doonto 13 November 2017 hadii Ilaahay raali ka noqdo madaxweynuhu madaxweyne ku-xigeenku wuxuu warbixin faahfaahsan ka siiyay wafdiga qaabka ay u socdaan qaadashada kaarku oo labadii gobol ee ugu dambeeyay Jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Sool iyo Sanaag ay imika si habsamay uga socdaan waxa kale oo madaxweyne ku-xigeenku wafdiga uga warramay guud ahaanba iskaashiga iyo xiriirka soo jireenka ee ka dhaxeeya dawladda Soomaaliland iyo dawladda Ingiriiska waxa kale oo madaxweyne ku-xigeenku hoosta ka xariiqay in dawladda Ingiriisku ay tahay dawladda ugu taageerada badan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland dhinacyo badan ka taageerta wuxuu madaxweynuhu uga mahadnaqay wafdigan ballaaran ee uu hogaaminayo wasiiru dawlaha arrimaha dibadda ee dawladda Ingiriisku booqashada qiimaha badan ee taariikhiga ee dalka ku yimaadeen dhinaciisa waxa isna warbixin faahfaahsan siiyay wafdiga wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shire oo uga warramay guud ahaanba mashaariicda horumarinta ee ka socda dalka Soomaaliland sida mashruuca horumarinta ballaarinta dekedda Berbera mashruuca militariga bayska Berbera mashaariicda horumarineed kale dalka ka socda wasiirku waxa kale oo wasiir Saad Cali Shire waxa kale oo dawladda Ingiriiska uga warramay in dawladda Soomaaliland ay iyadu isku tashatay dhowr jeer oo ay dib u dhaceen doorashooyinku waxay keentay in ururadii deeq-bixiyayaashu ay yiraahdaan idinku isku tashada wasiirku markaa wuxuu wafdiga Ingiriiska u cadeeyay in dawladda Soomaaliland iyagu ay isku tashaday intii ugu dambeysay ee lacagtii lagu qaban lahaa doorashada soo socotana ay dawladda Soomaaliland ka fargaraysay wafdiga guud ahaanba wuxuu aad iyo aad uga mahadnaqay dawladda Soomaaliland xasiloonida deganaanshaha kala dambeynta iyo guud ahaanba Jamhuuriyadda Soomaaliland siday nabadgelyo iyo daris wanaag ugu nooshahay dariskeeda wafdigu waxay ballan qaadeen in ay dawladda Soomaaliland ka caawin doonaan wixii looga baahdo xagga qabashada doorashooyinka taasina ay adduunyadu maanta indhaha ku hayso waxa kale oo uga mahadnaqeen dawladda Soomaaliland qaabka ilaa imika ay dawladda Soomaaliland ugu guuleysatay inay qabato doorashooyinkii hore tan beesha caalamka ay rajeynayaan in sideeda u qabsanto marka la isku soo wada geeyo waftiga ballaaran ee uu hogaaminayo wasiiru dawlaha arrimaha dibadda dawladda Ingiriiska u qaabilsan oo uu heliyo safiirka u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya wuxuu ku soo gabagaboobay guul iyo isafgarad waxaana looga mahadnaqay waftiga booqashada ay ku yimaadeen dalkeena intaas ayuu ku soo gabagaboobay